waxaan shaki ku jirin in uu corruption dhacay na tartamayay waxaa loo siiyey madax bannaanin inay iyagu qofka rabaan keensadaan oo la tartamo xubnana waxaa lagu saladay ummad tiro badan oo ama dhaqaale iyo ama culays ama mid beelood ama mid siyaasadeed leh de loolan buu gelayaa loolanka uu gelayo waxaan oran karnaa anagu waa inuu yahay mid afa laakiin anagu mid nafac iyo waxaas anagu meel uga hadalhaya anagu maan arag laakiin waxaan aragnay tartan furan أنا waxaan qabaa madaxweynuhu sidii laga rabay iyo sidii laga filayay iyo wax u dhow xitaa ma yahay meesha wax ka khaldameen oo arrintu hadday fool xumo leedahay ka fool xuntaana waa halkaa weeye waa shaqada madaxweynaha طبعا de xubnaha soo baxaya qof walba uu doonaya kuwa isaga taageersan inuu helo oo madaxweynaha federaalka doonaya musharaxiinta kale doonaya madaxweyne waa dhici kartaa waa arrin siyaasadeed laakiin anagu qofka kan u soo saara qofka kan annaga de baarlamaan ahaan annaga arrintaas naguma jirin ma aha Puntland oo kaliya maamuladoo dhan bay ka dhacday taa way cadda uma baahna in la dafiro kursiga magaalada Cabdiraxmaan Farool ku soo baxay iyo Cumar Cabdirashiid ku soo baxay kursiga saddexda gabdhood oo mudug ay u tartamayeen maxaa iyaga isku reer Cabdiraxmaan nin jifidiisa in Cabdirashiidna sidoo kale gabar maartay raaskiisa laga keenay liis xiran buu ahaa koota liist uu ka yahay taas gabdhuhuna sidoo kale afar saddex gabdhood oo ilmaadeer oo hal xarig ka soo baxay baa maxaa dadka kala tartansiyay iyagana tartansii waay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا كسر وهذا برنامج دودا وإذا كمان يا مجال جروية عاصمة الدولة بنتلاند برنامج كان أيها كسب سن دور الشديد دوان كان عدي مجال جروية عاصمة بنتلاند خاصة مناياش برلمان كبنتلاند أي كوكلا ساريين مناياش بنتلاند مثل دونا أقل كسرت برلمان كدولة الفدرال كاهية الصومالية doorashadaas oo dhacday 20kii bishii Oktoobar 2016 ayaa waxa ka soo baxay 11 xubnood kadib tartan adag oo ka dhacay aqalka baarlamaanka taasoo ay ku tartamayeen xubno gaaraya ilaa 29 qof oo isugu jiray siyaasiyiin culus oo miisaan ku leh siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya iyo waliba dad kale oo iyaguna imika siyaasadda qudarinaya inay ka qayb galaan doorashadaasi waa lagu kala duwan yahay qaabka ay u dhacday waxaa jira dad soo dhaweeyay iyo dad naqdinaya qaabka u dhacday ama hufnaanteeda marka mowduuca barnaamijku waxa uu noqon doonaa maxaan ka baran karnaa doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Garowe caasimadda Puntland ee xubnaha aqalka sare lagu kala saarayay maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha siyaasadda guud ahaanba Soomaaliya ama doorashooyinka kale ee soo socda ee la filayo inay ka dhacaan sida aqalka hoose iyo dambe madaxtinimada barnaamijka su'aalahaasi kuwa kale ayaan isku weydiin doonaa kuwaasi oo ku aadan arrimaha aqalka sare waxa iga qayb galaya doodan xildhibaan Burhaan Aadan aw Cabdi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland doorashadaasi ka qayb galay 20kii Oktoobar 2016 waxa kale oo qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Warsame Joolaqo oo ah aqoonyahan reer Puntland waxa kale oo dooda isna ka qayb galaya Cali Xaaji Cabdulle oo ah siyaasi hore waxa uu soo noqday gudoomiyaha gobolka Nugaal asaaska Puntland waa dadka ka qayb galay sidoo kale waxa musharaxiintii u tartamaysay 2014 xilka madaxtinimada Puntland Burhaan Axmed Daahir oo ah gudoomiyaha hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nusaj ayaa isna dooda ka qayb galaya isla markaasna ah aqoonyahan aadna ugu warhaya arrimaha siyaasadda ugu dhuntoola ugu horeyn waxaan jeclahay inaan siiyo hadalka xildhibaanka oo kale waa soo noqon doonaa isagoo dadkii doorashada su'aalo badan waa weydiin doonaa Cabdiqaadir Maxamed Warsame Joolaqo inaan weydiiyo waxa laga baran karo doorashadii dhawaan ka dhacday Garowe ee aqalka sare maxay ku wanaagsaneyd ama maxaa lagu noqdi karaa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa khiyaarta dooda ka qayb galaysa guud ahaan haddaan u imaado su'aashaada waxa weeyaan waxa laga baran karaa waxyaabo badan oo aan ka tilmaami karo maxay ahaydey in Puntland siyaasadeeda siyaasad ka baxsan
in ay ka dhex loobi garayn karto ama iyagoo doonahaya inay soo saaraan dad ay isku jaal yihiin oo ama isku fikir yihiin dhanka siyaasadda in ay soo saari karaan ka soo saari karaan gudaha Puntland taasoo ah mid ka baxsan siyaasadda Puntland runtii dhanka horumarkan ka fiirinayaa waa tallaabo positive ah oo dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo Soomaaliya in ay u jihaysatay dhankeeda muujinaysa waxaan kaloo ka baran karnaa waan soo oran karaa doorka dumarka reer Puntland ay ku leeyihiin siyaasadda iyagoo maxay ahayd ka muujiyay kaalintooda siyaasadeed loolankii aqalka sare ee federaalka marka qodobada iyo qodobo kale aan isleeyahay waa laga baran karaa in waa tahay in Burhaan Axmed Daahir adigu maxaad ku daraysaa markaad eegtid in doorashadii aqalka sare sida ku muuqatay anigu guud ahaan doorashadii aqalka sare ka dhacday sida ay dhacday iyo xildhibaanadu sida ay u maamuleen runtii waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay duruufo badan baa jiray oo xildhibaanadu ikhtiyaarka ay haystaan dad wax liis loo soo qoray bay ahaayeen madaxweynuhu dad hor keenay marka waxay ku qasbanayeen dadka liiska ku qoran inay kala doortaan oo kuwa maartay iyagu ay kala shaandhaystaan laakiin dad cid ay doonaan tartan furan maahan dad warqad ku qoran bay ahaayeen marka baarlamaankan waxaan qabaa waa dadaaleen sida markaan ka fiiriyo dhowr nooc markaan ka fiiriyo qaabka ay isugu miisaameen maaragtay u soo kala saareen beelaha maaragtay kala duwan oo xildhibaanadu ka sharaxnaayeen oo kale sida isugu miisaameen qaabka ay wax u qaybiyeen waa runtii qaab ka qurux badan baan leeyahay qaabka hadda aanu wax ku dooranno madaxweynaha ku dooranno ama maaragtay golayaasha deegaanka ku dooranno ama xildhibaanada ku dooranno waa ka fiican yahay marka qaabka kale gabdhaha ay usoo saareen iyadoo weliba gabdhaha rag badan la dhexgeliyey qaarkood iyadoo maaragtay gabdho badan oo aan dhihi karo haddii ragga kale oo keligood tartamaya xitaa hadday la sharaxnaan lahayn ama qaarkood gabdhaha waxay ahaayeen kuwa qurxinaya unbay ahaayeen kuwa la tartamaya ma ahayn oo kale runta markaan sheego ra-iisul wasaaraha oo kale gabadha la tartamaysay Cumar Cabdirashiid ma ahayn gabar yacni si xora u tartamaysay oo iyadu iskeed usoo sharaxday ma ahayn marka waxaan qabaa gabdhaha qaabka wax la garanaya weeyaan maaragtay rag badan baa lala tartamayn oo maaragtay rag saaxiibadooda iyo gabdho magaranaysa ehelkooda iyo gabdho maaragtay jaalka siyaasadda kula keensaday mogtahay marka waxay ahayd haddii yacni gabdhuhu si xora usoo tartami lahayn in baarlamaanku diyaar u ahaa inay wax doortaan baa kuu muuqata baarlamaanku waa dadaaleen waxaan leeyahay waxay ku tusaysaa baarlamaanku inay siyaasadda Puntland iyo qaabka madaxweynaha lagu doorto iyo habka monotonoska isku soo noqda inay wax ka bedeli karaan marka rajo ayaa xoogaa waa soo kacnay baarlamaanku waa ku niyad jabsanayn waa hiifaynay waa la haraamay laakiin waxaan leeyahay dadka qaarkood dad ay wateen markay haraan oo kale ama la jeclaayeen oo kale shakhsiyad caan ah waa weyn weyn laakiin aniga waxaan qabaa sidii baarlamaanku doorteen baa ilaa qumanayd aad baa umahadsan tahay dad kale oo u arkay inaysan fiicnayn way jiraan waxaan gudbayaa cali xaaji cabdille su-aashaasi lamid aan soo weydiiyey cabdiqaadir iyo burhaan haddaan ku weydiiyo doorashadii aqalka sare ee Puntland adiga maxaa kaaga baxay cali bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada waan salaamayaa halkaan dooda aan wada jirno waxaan kaloo salaamayaa soo dhaweynayaa dadka iyagana nagala xiriiri doona dabcan barnaamijkan oo muuqaal nagula xiriiri doona ama dhageysan doono aniga arrintan fikrigan ah runtii waxaan aaminsanahay ama aan u arkay inay ahayd barnaamij ay ka dhex muuqan kartay aragtida hadda qofka duurun ahaan u cabiro ku talagalka Puntland ay iyagu talagashaneen inay ku jireen gacmo kale inay ku jireen baa ka muuqanaysay qaabka marka laga eego dadka loo soo xulay marka laga eego dadka sida la isu saaray xulitaanka waxay la tahay shacabka iyo Puntland dad wax u dhamaayeen ma ahayn waxay ahayd wax madaxweynuhu kaligiisu soo xulay waxyaalaha cajaa'ibkaan hadda madaxweynaha xuristiisa aan leeyahay waxaa ka mid ah hadda xubnana waxa weeye xubno tartamayay waxaa loo siiyey madax bannaanin inay iyagu qofka rabaan keensadaan oo la tartamo waa ka dareemi kartaan xubnana
waxaa lagu salladay ummad tiro badan oo ama ama dhaqaale iyo ama culays ama mid beelood ama mid siyaasadeed leh baa lagu salladay oo laga yaabo in hal ahayn laba ahayn saddex ahayn oo sida kan loo siiyo xorriyadda in qofkiisa keensado isaga aan loo siin xorriyaddaas waxyaalahaas horta waxay kutusaysaa marka horeba barnaamijka xulashadiisu inayan ahayn mid qofkii dhab ahaan u gala u fiiriya mid rabid shacabka ay soo dhaweyn karayaan ma ahayn waxaa la filayay inay tahay si cadaalada dadku inay u tartamaan si cadaalada dadka in la isu saaro xubnaha tartamaya rightskooda ama tartanka ahaadaan ama xulista ahaadaan inay iyagana ay ka siman yihiin taas haddaan intaa uga gudbo qaybtii labaad oo baarlamaanka puntland anigu runtii 2014 waan ogaa xilligii doorashadii madaxweyne lagu jiray tii haddana waxa weeye haddee lama dhihi karin baarlamaan si dimuqraadiyada ama si rabitaana wax kusoo xulanayo ahaa lama dhihi karin baraa waxay ahayd ama gacmo kale ku jiraan ama dhaqaale kale ama siyaalo kale oo nin xoog siiyo nin toox siiyo dhaqaale iyo waxyaalo badan ay gacanta ku jiraan waa ka muuqanaysay waxaana ku garanaysaa sidaas haddii xubno waaweyn oo ummadda mas-uuliyado badan usoo qabtay karaamo iyo ixtiraam ku lahaa aasaasayaashii puntland qaarkood ay ka mid ahaayeen sina aan uga dhex bixi karin siyaasadda puntland baa waxay noqotay ka baxaan kuwo kale waa sigteen waxyaalahaas oo dhan waxaan u arkaa in frameka doorashadu qaabka uu dhacayay marka loo eego hadda sidaynu wax u dooran jirnay oo u dooranayna sanduuqa waa lagu ridanayay laakiin gacmaha ku jiray aad bay u badnaayeen waxaana kaloo sii ama qaadaya taasaan leeyahay la soo xiriirinayaa sida hadda wax usoo baxeenna muuqaal waxay u tahay sida wax u bixi doonaan doorashada kasii dambaysa ama doorashada imaan doonta madaxweynahana inay waxay ilu tahay inay dadka raalli gelin doonto aad baa mahadsan tahay cali xaaji cabdulle adigii burhaan oo kale iyo waxaad tilmaamteen in xoogaa doorashada lagu dhex jiray oo dadka tartamaya ay ku jireen qaar aan tartanka u imaan qof keensaday laakiin anigu taas ma ogin caddeyn uma hayno waxaan ognahay keliya in madaxweynaha puntland uu xubna soo sharaxay xubnahaasna uu baarlamaanka usoo gudbiyey waxaan gudbayaa burhaan xildhibaan burhaan waad maqlaysaa xubnaha dooda kugula jira oo ka hadlaya in baarlamaanku arrimo badan oo sidii la rabay ama ummaddu ay filaysay inaysan u qaban maxaad kaga jawaabaysaan gaar ahaan doorashadii ugu dambeysay aqalka xubnaha aqalka sare aad kula saarayseen baarlamaanku suu wajahay horta waa salaamayaa saaxiibadayda dooda igula jira iyo saxaafadda inta naga fiirsanaysa ama naga dhegaysanaysa ee puntland iyo soomaaliyeedba baarlamaanku waxa uu fuliyey waa wixii nidaamkii lagu soo heshiiyey madashii soomaaliya markii shirkii la galay dadkii soomaaliyeed oo meesha isugu tegay waxay kusoo heshiiyeen nidaamkii wax lasoo magacaabay oo ahayd in fulintu soo magacowdo maamul goboleedadu aqalka sare golayaasha wakiiladuna ay ansixiyaan bay ahayd baarlamaanku sidii loo soo qoray waa loogu keenay cid haatan ciddaas daaya oo ciddaas cod ha siinine oo lala tartami maayo nina meesha kama cadday waxay ahayd tartan furan oo qof walba ama laba kula qoran tahay ama saddex kula qoran tahay ama laba qof ama saddex qof ama afar qof intaas ahayd marka de sidii nidaamkoodii bay mareen waa u codeeyeen mid malaysanayay baa waayey mid aan malaysanayn baa helay mid maxaan ku idhaahdaa privilege lahaay oo laga dambeeyey oo la tixgelinayay baa sigtay mid kala wax meel dhexe ku dhacay waa dee doorasho dee wax saasa ku garan ka dhaabay in ma garanaysaa aan kolle dhexdeeda aysan ka jirin wax ma garanaysaa hebel sii daa iyo hebel soo daa markee hadda tartamayaasha rag ka mida way sheegeen in dad muuqday ka hareen meeshii dad kale oo la maleynayay ay sigteen dadka waa sax saasay u dhacday laakiin xildhibaanna miyaan qari karnaa in musharaxiinta u tartamaysay aqalka sare ay xudxudasho iyo loolan baarlamaanka ay ugu jireen kuwaas oo waxa muuqda ay ka badan yihiin waxa qarsoon oo baarlamaanku laftigooduna ay ku jirtay
mid kasta dantiisa gaarka haddii noqon lahayd dhan manfac dhan maskab dhan qabiil mid saaxiibtimo dabcan qofku markuu tartamayo oo wax doonayo oo kursi uu u tartamayo ama madaxweynaha u tartamo ama xubin baarlamaanka u tartamo ama mid hoose u tartamayo dee loolan buu gelayaa loolanka uu gelayo waxaan oran karnaa anagu waa inuu yahay mid afa laakiin anagu mid nafac iyo waxaas anagu meel uga hadalhaya anagu maan arag laakiin waxaan aragnay tartan furan oo dee nin walba uu leeyahay aniga hallay doorto dee kursi 4 qof ka dhexeeyo kale waa garan karnaa baarlamaanka 4tiiba waa martiqaadayaan mid walba wuxuu leeyahay aniga hallay doorto anaa ka fiican wuxuu soo gudbinayaa CV-giisii kaana ka sii fiican doorashooyinka dee waa garan karnaa caalamiga nin u hambayn mayo gabar u hambayn mayso mid walba waxay leedahay anigaa kan ka fiican hallay doorto marka dee politiciskaas way jiraan oo nin taas waa tartan weeye oo wixii tartan lagu yaqaano in qofku yidhahdo anaa ka fiican wax intaa ka baxsan oo haatan dee corruption aanu ma ogin waa tahay dib baan kugu soo noqon doonaa su-aalo badan ayaa jira iminka waxaan ku noqonayaa cabdiqaadir maxamed warsame tartankan intuusan horey u dhicin waxaa jiray ilaa iyo intaan xasuusto 2 xubnood oo ka mid ah xubnihii uu madaxweynuhu soo magacaabay in iyagiina ay ka tanaasuleen beelahoodiina ay saluugeen arrimahaas saameyn ma ku lahaayeen doorashadu habkay u dhacday ama guud ahaan ma ku yeelan doonaan doorashada kadib Puntland cabdiqani waa arrin maxay ahayd aad loo hadalhayo runtii aniga aragtiyan waa is leeyahay waxa sababay waxay ahayd markay saluugeen iyagoo ka duulahaya wixii lagula soo ballamay ama ballanqaadkii hore ee ka dhaxeeyey iyaga iyo ra'iiska ama madaxweynaha iyagoo si gaaran ula kulmay iyagoo si beeleed ula kulmay intaba uu madaxweynuhu u caddeeyey in positionkan iyaga uu siinayo taa waa xaqiiqo weeye waa waran ahayn iyo markii damboo la magacaabay sida ay wax u dhaceen taa waxay keentay in ay qaadan waayaan kadibna ay tanaasulaan marka markii dambe doorashadu ay dhacdayna waxa weeyaan calaamadihii ay tilmaameen ama ay oranayeen maxay ahayd way noo muuqataa sidaasay wax noqon doonaan yaa ka muuqday meesha waayo dadna waxaa ka muuqatay meesha privilege dadna waxa weeyaan waxaa la yidhi hebel keenso meesha lagugula qoro oo isla beeshiisi ah qaarna waxaa la yidhi waa idin ballanqaadna waa idin siinaynaa markii dambe liisku soo baxayna waxaa lagu dhex tuuray dad Puntland ay ka soo wada jeedaan laakiin ay kala beel yihiin waxaa kaloo muuqatay qaarna laba xubnood ayay u qornaayeen qaarna waxay u qornaayeen 3 iyo wixii ka badan marka mudnaan gaar ah inay muuqatay baa meesha ka muuqatay shakigaas iyo saluugmadaas waxay sababtay dadkaas inay ka tanaasulaan meesha waa tahay aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir su-aashaasi mid la mid ah ayaan weydiinaya waxaan kaloo ku celinayaa cabdiqaadir waxa uu sheegay tusaale ahaan in ay jiraan caddaymana ay u hayaan in ay dad loo ballan qaaday laakiin annagu ilaa hadda ma ogin cid hadda dowladdii ka tirsan ama masalan xafiiska madaxweynahana dowladda nagalama qayb galayso burhaan haddaan ku weydiiyo qaabka madaxweynuhu uu soo sharaxay xubnaha aqalka sare cabdiqaadirna hadda uu tilmaamay ma ahaayeen qaab macquul ah inkastoo dadku dhan aan la wada qancin karin haddana macquul u soo dhow marka la eego qaabka la isugu soo hay xubnaha tartamaya sidee bay u ekayd qaabka liiska uu soo gudbiyey madaxweynuhu oo dadka liiska ugu soo qoray marka la eego iyo dadka xataa uu liiska ku soo qoray أنا waxaan qabaa madaxweynuhu sidii laga rabay sidii laga filayay iyo wax u dhow xitaa ma yahayn meesha wax ka khaldameen oo arrintu haday fool xumo leedahay ka fool xuntaana waa halka weey waa shaqada madaxweynaha أنا waxaan qabaa baarlamaanku eed badan ma laha
baarlamaanku joyceka ay haysteen waay waa laga yaabaa qof iyo laba inay il duufeen laakiin ikhtiyaarka iyo joyceska ay haysteen wixii markaa loo keenay inay kala faaqidaan oo xun ka soo saaraan anu waxaan qabaa waa dadaal laakiin meesha baashu ka xumaatay khasaaruhu ka dhacay cadaalad darradu ka dhacday foolxumadu ka dhacday yacni hanjabku ka dhacay waxaa liiska madaxweynuhu keenay oo aan standard ahayn laakiin liiska in burhaan qaabka ku khaldaan kuu sheegaya kursiga magaalada cabdiraxmaan faroole kusoo baxay iyo cumar cabdirashiid kusoo baxay kursiga saddexda gabdhood oo mudug ay u tartamayeen maxaa iyaga isku reer cabdiraxmaanna nin jifidiisa oo sidii la sheegaya madaxweynaha magaranaysaa ka mida xertiisa ka mid a oo madaxweynuhu soo xushay in cabdirashiidna sidoo kale gabadh maaragtay raaskiisa laga keenay liis xiran buu ahaa koota list unika yahay taas gabdhuhuna sidoo kale saddex gabdhood oo ilma adeer oo hal xarig ka soo baxay bay ahayd maxaa dadka kala tartansiiyey iyagana tartansiin waaye waxay ahayd madaxweynuhu hadduu samaynayo xildhibaanada kalena inuu sidaa ka wada simo haddii kale liis furan inay cumar cabdirashiid iyo faroola tartamaan bay ahayd inay tartamaan bay kursiga dhex dhiga iyaga ma garanaysa dadka kale markaas ay ku qanci lahaayeen tartanka laakiin waxaa muuqatay in madaxweynuhu uu dad ciday ballan gaara wada galeen iyo dad uu rabay inuu soo saaray dadna uu rabay siduu rabo laakiin waxaan ogahay dad uu rabay inuu soo saaray inay hareen baarlamaanku reebeen oo ay soo saareen waa jirtaa xubno aan la malaynay inay soo baxaan ama sharaftooda iyo waxay dalka usoo qabteen iyo kaalinta ay kaga jireen haray waa jireen marka taas wey tan khaladku ku jiro laakiin waxaa jirta in aqalka golaha sare oo kale markii ugu horeysay Soomaaliya yeelanayso in dowladda Puntland dowladda federaalka ay ka mid tahay marka madaxweynuhu kulli la tashiyay waa sameeyay baarlamaanka laftigooda beelaha in laftigooda odayaasha laftigooda ma la oran karaa markuu wax la rogrogay sidaas oo xal u arkay in oo dadka u soo gudbiyaan baarlamaanka ana waxaan leeyahay odayaal cadaadis badan oo siyaasadeed saaray oo ay ku adkeyd inuu ka hor istaago marka laga reebo odayaasha waaweyn oo culayska siyaasadeed ama maaragtay beeleed leh marka laga reebo dadka kale uu keenay kuwa gudaha u keenay dad siyaasadda caan ku ama lagu yaqaan ama door kaga jiray ma dalka way ku noolaayeen waa naqaanaa qaarkood xitaa weligood golo deegaan kama qayb qaadan xataa maalin ololaa kama qayb gelin oo nadaafad lagu samaynayo qaarkoodna kuwa naqaanaba maaha dhowr toddobaadkii u dambeeyay soo dhaceen dadkaasoo madaxweynuhu keenay iyadoo joogaan dad maqaawiira sharaf iyo waxqabad iyo aqoon iyo siyaasad iyo hal lagu yaqaana ay joogaan in dad siyaasadda ku cusubna baa uu keenay laakiin wayna ka dhex muuqdeen markaasaa dad qaadana qaarkood xafiisyadii madaxtooyadu ka dhex ololeynayeen ma garanaysaa dadka ay rabeen inay soo saaraan aada yaabaysaa macnaha يعني tayadooda siday u hooseyso marka meesha wax ka qaldaman waa madaxtooyada halka way laakiin baarlamaanku waxayna tuseen in maartay siyaasadda madaxtooyada ay ka hortay karaan ay fashilin karaan marka qaarkood ay dadaali karaan xataa sida qaabka wax loo doorto tartanka madaxweynuhu markuu yimaado meeshay doonaan ay codka marin karaan dariiqa ma garanaysaa baastada iyo bariiska ma garanaysaa ama cad iyo caanaha aanu baranay inay naga leexin karaan marka qaarkood adoo master burhaan wax rabaan siiyo in cali xaaji cabdulle oo aan su'aasha hadda ku sii noqon waxa aad u faahfaahiyay cabdiqaadir iyo burhaan waxaad hadalkaaga ku jirtay markii dhawaato in ugu horeysay in baarlamaanka doorashadii maalintii dhaweyto ay qabteen ay ka muuqatay in gacan Puntland ka baxsan gacantaas waa teen baarlamaanka dabcan waxa weeye sida loo warramay liis ma iyaga la hor keenay liiska la hor keenana anu markaan ragga aan la qaybsado fikriga hadda u dhameeyay burhaan ya principal hore waxaan aaminsanahay dastuurka Puntland ay leedahay meelay kaga xusan tahay male masiirka dadka inuu marka horeba madaxweyne ama hal qof inuu go'aamiyo waxaana waxay ahayd wax madal lagu soo shabmadasho kuma qorna haddii madal jidhana sida doorashada ay u qoran tahay iyo qaabka masiiriga looga qaybgalayo mas-uuliyadda noocaasi madaxtooyo iyo golo baarlamaan iyo golo xeerdejin iyo dowladnimo horta qofay wakiil uga yihiin ma jiro mas-uuliyad shacabku leeyahay bay ahayd taa waa ka xumaa in la gees maray waa ka xumaa inay hal gacan ku ururtay oo markaas hadda gacan hadday ku ururtay waa la malayn karaa marka laakiin doorashadu waa la malayn karaa su-aashada usoo noqon doonaa hal gacan hadday ku ururtay marka waa la malayn karaa wax ka soo bixi doona gacan baa ku jirta markaan leeyahay waxaan uladan leeyahay innagu waxaynu ognahay in ay hadda soo socoto ama baarlamaanka hadda golayaasha hadda ina ka soo baxayo aqalka sare inay ka dameeyaan aqalkii hoose intaba loo ballansan yahay in markaa la doorto madaxweynihii ama hoggaanka u sarreeya Soomaaliya waxaan ognahay inay kooxo badan ama magac diimeed leh ama magac kale ururo leh ama magac kale beeleed leh ama siyaalo badan inay u wada jiraan halgan ama kuwa jooga hadda ha ahaadaan oo magac leh oo la yaqaan oo la yiraahdo waa damo jadiid
ama kuwo kale oo iyana sumad kale leh ha ahaadaan inay halgan wada jiraan inay mataqaanaa hanashaan ama ku fariistaan ama ku sigaan waxaan ogahay aniga waan ka warqabaa kooxda hadda joogtaa inay muddo dheer ay u jirtay kooxda xasan xashiikh baan leeyahay misaal oo kale yaa waxaan qabaa inay ku soo tuureysay innaga keliya ma aha dhammaan ama jubbaland ha haato ama baydhabo ha haato ama galmudug ha haato ama puntland ha haato inay ku soo tuureysay kooxo dhaqaalo wata kuwo kale si ay u hantaan ay u soo saaraan xildhibaano isleeyihiin taageero inay noqon karaan waxaan waa marka gacanta aad sheegaysid waxa weeye waxaan waa marka waxaan hubaa gacanta waa maanta federaalka weeye kuwa hadda xukunka haya weeye waxaan waa marka gacantaasi inay ka dhex muuqanaysay waa taa aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kugu daro masalan madaxweynuhu 4 sano ka hor buu yimid xasan sheekh doorashada muraadi uu ku yimid iminkana wuu sharaxan yahay oo uu cadeeyay maxaa u diidaya inuu loola sameeyo oo uu gobolada tago maadaama madaxweynaha Soomaaliya yahay oo Puntland ka ololeeyo Jubbaland ka ololeysto koonfur galbeed tago galmudug tago maxaa u diidaya waxaa u diidaya shaqadiisii already waa ka socotaa halka Puntland waa ka socotaa Kismaayo waa ka socotaa ama Jubbaland waa ka socotaa Baydhabo waa ka socotaa galmudug shaqadiisii marka ay xowl ugu socoto isagana uu heli karay inuu ka monitor gareeyo soo meeshiisa fadhiya yaa ana waxaan qabaa shaqadiisa qayb weyn halka hadda inay ka fushay waa aaminsanahay qaybo kalena dabcan waxaan aaminsanahay intaana laakiin maxaa dhibaato maxaa ku madaxweyne kasta markuu siyaasadda gelayo uu tartamayo shaqaxay yahay campaign buu sameeyaa olol sameeyaa madaxweynaha Soomaaliya dadka doortana maaha beeshiisa maaha waxa doortay Soomaaliya oo markii la dooranayay xukuumu qabsan hadduu tartan iyo olol sameeyo oo galaan sameeyo maxaa diidaya waxaa diidaya xaq buu leeyahay qofka soo tartamaya mujtamaca inuu kasbado xaq buu leeyahay laakiin waxa fiican xaqa uu leeyahay rabitaanka dadka inuu ku socdo maaha ma fiicna xaqa uu leeyahay inuu kasbasho kale oo ah ama dhaqaale uu dadku mataqaanaa ku caburiyo ama mataqaanaa ballanqaadyo been ku caburiyo waxa ka qurux badan shacabka iyo diyaar u ah 5 sano madaxweynaha muddo haystay rabitaankooda inay ku soo dhaweeyaan maritaankooda inay wadaan laakiin waxa araan inay ku dayo si kale ku dayo wata aba ma santahay mana ogin anagu ama cadeyn ma hayno ilaa haatan madaxweynaha ama tiimkiisa ama xukuumaddu meel dhaqaale ama xoog iyo ballanqaad ay ku sameysay waxa rabaa inaan siiyo xildhibaan burhaan xildhibaan waxa rabaa inaan ku weydiiyo doorashada ka dhacday baarlamaanka oo iminka cali xaaji cabdillaan uu sheegayo in ay jiraan galaanka badan oo ay sameynayeen siyaasiyiintu dadkuna ay sheegayaan weynuhu hadda misalan oo kale burhaan oo kale waxa xusay in dad aan la aqoon ama hore saameyn aan ugu lahayn dhanka arrimaha bulshada iyo siyaasadda inay soo bixin dad ka macno badanna ay hareen xubnaha noocaas oo kale miyaysan muuqan daliil aad leedihiin oo halkaasi aad ku kala saarayseen aad ku kala saarayseen si kale ama waxyaabaha dadweynuhu sheegayaan ay sabab ka noqonayaan annaga leyska naloo keenay haddee wuxuu ahaa kii madaxweynaha oo nidaamkii wadatashiga ku salaysnaa madaxweynuhuna markuu dee kolle damcan wax soo magacaabayo waa garan kardhaa 11 xubnood oo la yidhi ha loo qaybiyo dadka reer Puntland haddee 11 xubnood oo aan ka fogeyn weeye macnaheedu 4.5 oo de nidaamkii 4.5 buu ku salaysnaa xogaa baa laga duwayo maamul goboleedadii baa aqalka sare lagu saleeyay de markii kolle nin xafiis fadhiyo hadda de madaxweynaha Puntland oo kale ayo 11 xubnood loo dhiibay dadka reer Puntland intuu leeyahay garan karid inta beelood yahay ama siyaasiyiin leh ama aqoonyahan wax walba leh oo loo qaybiyay waa garan kardaa culayska fuulaya xafiiskaas macnaheedu madaxweynuhu joogo inta qof doonaysa waa garan kardaa sidaa daraadeed marka wixii isagu markii uu arkay buu kulli anaga noo soo gudbiyay annaguna de wixii marka aragtidayadii de aragtidii 66 xubnood doorasho galayaan aragtoodu kala duwanaanaysa qofka fiican iyo qofka fiican iyo CV ba kulli de dabcan meesha oo lagu kala saaray dadka anagu marka inta wax ka baxsan doorashadaas iyo nidaamka iyo sida madaxweynuhu u soo gudbiyay wax ka baxsan boogin waxa kale oo dhici karta de doorasho marka lagu jiro ama Soomaaliya laga jiro ama gudaha laga jiro oo dad madaxweyne u sharaxan yahay ama mid Soomaaliya ha noqoto ama mid maamul goboleedo dana gaar ah la noqoto de tabcan de xubnaha soo baxaya qof walba uu doonayaa kuwa isaga taageersan inuu helo
oo madaxweynaha federaalka doonaya musharaxiinta kala doonaya madaxweyne waa dhici kartaa waa arrin siyaasadeed laakiin annagu qofka kan u soo saara qofka kan annaga de baarlamaan ahaan annaga arrintaas naguma jirin shuqul kuma aanan lahin laakiin de kol arrin siyaasadeed mar hadday tahay waa dhici kartaa de qof walba inuu doonayo 11 kaba in hal qof oo musharax Soomaaliya ka inuu soo baxaan oo danaynayo waa dhici kartaa waata arrimaha la hadlayo waxa kamid ah in xildhibaan burhaan in doorashada baarlamaanka Puntland tii ugu dambeysay aqalka sare inay saameyn weyn ku lahayd dhanka dhaqaalaha oo ay dhacday cod lacag kala bedelasho sidaas waxa qaba in badan oo kamid ah shacabka idinkuna shacabka madashaan ma ogi anugu taas shacabka naga waran bay la tahay shacabku kala dadka ayaa ku dhex jira laakiin anagu waxa weeye ka baarlamaan ahaan qofka kan lacag lagu reebo qofka kan dhaqaalaha ahaan lagu soo saaro qofka kan dhaqaalaha lagu reebo meel ka dhacday anagu ma nanoogay waxa weeye xubnuhu way saarnaayeen waxaan oran karaa wixii rabbigay ugu talagalay baa soo baxay wax kale anagu ma keeni karno marka meel dhaqaale lagu kala gatay ama qof dhaqaale lagu soo saaray ama qof dhaqaale xumo lagu riday ama qof dhaqaale badna lagu soo saaray baarlamaanka dhexdiisa kama aysan dhicin waxaan la fadhiyaa in nidaamnimada odayaal xogaala in Cabdiqaadir isla qodobkaasi ku saabsan dhanka in lacagta haddaad ama u gashay inta badan si aragtaa in ma dhacday cod lacag kala bedelasho mise sida xildhibaanku uu sheegay sidii wixii rabbi ugu talagalay soo baxay horta waxaan shaki ku jirin in uu corruption dhacay corruption markaan leenahay waxaan ula jeednaa in cod dhaqaale ku bedelasho ay dhacday taa waa wax xaqiiqo ah waxa qeexay ama qiray waraysigiisii ugu dambeeyay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya in ma aha Puntland oo kaliya maamuladoo dhan bay ka dhacday taa way cadda uma baahna in la dafiro laakiin waxa nasiib darro ah Soomaaliya maanta rajo ayaa soo iftiimaysa waxa rajada laga qabana waxa weeyaan dawladda dhalan doonta laakiin haddii maanta bayskii ama aasaaskii dawladda dhalan doonta oo ah soo xulidda aqalka sare oo uu ku xigo soo xulidda aqalka hoose ay corruption ka dhacay corruption uu yimid waxa weeyaan waxa mugdi uu galay rajadii muuqatay waayo waan garan karnaa dawladda ka iman doonta ama ka dhalan doonta xildhibaan corruption ku soo baxay salaaldigeed waxa weeye waa nasiib darro corruptionkaas inuu dhacay doorashadii maamul goboleedyada ka dhacday oo dhan uu saameeyay waxaan ognahay aqalka hoose oo haatan xulidiisu maalmo naga xigto ama doorashadiisu in uu wadadii oo kala mari doono oo aan ka warhayno ururadii siyaasadeed ee ka dhex muuqday doorashadii dhawaan dhacday in ay xubno ku leeyihiin kana dhex muuqan doonaan la kala wareejin doono codadka loolan culus uu dhici doono corruption uu dhici doono taasna sidaasaan u qeexaya waatahay in Cabdiqaadir in marka laga reebo ergeyga jimciyadda baarlamaanka ka dhaxaysa ee Soomaaliya hadal ka soo baxay in waxa sheegtay inay xaqiiq tahay inuu dhacay musuqmaasuq xaqiiqdaada haysid adoona la wadaagaya maxaa ka mid ah oo aad laba waxaan joognaa waa Garowe waa goobtii doorashadu ka dhacday waxaanu la kulannay xildhibaanadii qaarkood waxaanu la kulannay murashaxiinta qaarkood kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay dhammaan way qirayaan in ay dhacday corruption inuu dhacay kulli way qirayaan xaqiiqo waatahay burhaan baan inaan siiyo laakiin sama kore su-aashaas waxaa xildhibaan burhaan inaan ku soo aadiyo Cabdiqaadir wuxuu sheegay in qaar ka mid ah baarlamaankii tartamayay ee aqalka sare doonayay musharaxiinta ahaa inay arkeen oo caddaynaya qaar ka mid ah baarlamaanka in iyaguna ay sheegayaan marka adna haddaa ay waxa lahayd ama sarnaan soo qaadaysa inuusan arrintaasi ay sidaas ku qabanayaan labadaas wuxuu marka la sheegayo qofku soo ma ogid intuu meel istaago inuu iska sheegi karo
anugu hadda intaan meel istaago oran karaa sidaa iyo sidaasaa jira laakiin waxay u baahan yihiin caddayn moogtahay annaga baarlamaan baan nahay shacab iyo dal baan matalaynaa annaga baarlamaanka dhexdiisa ma ka jirto wax corruption inaan qof ku dooranno nidaamka iyagana kuma jiro waxa weeye caddayn qofkii u haya in qofkan lacag lagu riday ama lacag laga qaatay ama corruption dhacay de waxa weeye ha keeno laakiin annaga ka baarlamaan ahaan dhexdayada iyo go-aanka iyaga iyo nidaamka iyaga dal iyo dad baanu matalaynaa kama jirno inaanu lacag intaanu laaluusha qaadano dad ku ridno dadna kusoo saaro laakiin xildhibaan masalan dadka tartamaya oo kale musharaxiinta hadda tusaale ahaan 2014 waxaa jirta musharaxiin madaxweyne u timaysoo kale oo markii doorashadu dhammaatay lahaa lacag baan u baahannahay lacagtii aad naga qaadatay imaadan coday oo magaaladu ay martay tan hadda oo kalena qofku markii uu tartamaya ka guulaystay warkiisa ilaayo haba dhaho si fiican bay ku dhicin laakiin kii laga guuldareystay caddayntii buu helayaa dadkii uu la kulmayaa dadka hadda dooda ku jira masalan adigu ka mid tahay dad mas-uuliyiina weeye dadkii tartamayana dad waaweyn weeye marka meel iska dhintiri karaa annaga qofkii qof isagu intuu xas la galay wax u sheegtay annaga taas ma ka hadlayno moogta annaga waxaan ka hadlaynaa waxna waa caam waxna waa shaksi moogta musharax iyo qof xildhibaana wax dhex maray ama qof kale wax dhex maray annaga nooma taalataa laakiin annaga waxaa noo taala caam ahaan baarlamaanka dhexdiisa wax corruptiona oo caam ah oo baarlamaanku wada og yihiin ma ka jidhaa wey annaga intaan difaacayo laakiin shaksi wax dhex maray de ciddii uu dhex maray baa og baarlamaanka ma sheegayna baarlamaanka laftigiisa marka hadda qof codayn uu lacag ku siiyey oo yiri iyo coday lacag baan ku siinayaa oo hadhow qofkii uusan u codayn oo magaalada dhexdeeda la arko qofkii cayrsanaya miyaysan caddayn hayn ma dhicin taas waa tahay marhaad wax dhacay taas ma بسم الله أرنتا كسبسن مسقة برلمانك دحديسة هذين وقت بدن ونقاطن وما قبان قوا وأرن تاريخيا برلمانكو سندي ودن بي دور شوي ودن بي أو خدع برلمانك دحديسة أرن سوتشري ومعروف هواي سوماليا واحد مدة دقن العادي إني تاي وحتى عارك سمع لها قاركود برلمان هذا كلياش الديجان هذا degmooyinka golayaashooda deegaamada golayaasha degmooyinka waxaa mararka qaarkood arkaysaa in tartan iyo lacag uu jirto oo ninka maayarka doonaya uu lacag khasiraya oo kale waxa weeye marka arrintaasna waa arrin aada halis u ah waa arrin keenaysa dalkani in uu sidii intii la filayay in ka degdegsan uu gacanta ka baxa weeye waa arrin masiirkiisa dalka oo dhan for sale yahay waana sababta madaxweynayaashu marka ay xukunka yimaadaan oo ay soo iibsadaan magaranaysaa codkooda 5 sano ama 4 sano ay joogaan inaad meeshaan waa meherad anigu aan iibsaday sidaan doonaan u takrifala sharci ma qabto xeer iyo dastuur wax ay qabta male waayo anaa iibsaday codka waa gatay xildhibaanku inama xisaabtami karo waayo xildhibaanku codka waan ka iibsaday marka wax weeyaan madaxweynaheena hadda jooga iyo kuwii uu tartanka maartay kaga adkaaday musharaxiinta oo kale waa lacag bixiyo xildhibaanadaas suuqa la isku ceyrsanaya habeenbarkii oo bastooda la isku rag loo soo diray lacagtii keen imaad codayn lahaa hebel baad u codaysay wax qarsoon maaha marka waxa weeyaan garow oo adax weeye haddeertaan baa la is haystaa ballantuu nooga baxay lacagtii naga qaatay baa la hadda eed u socotaa haddeertaan maxaan ku kuwa leeyahay ninkii intaasoo lacagahana waa ka baxday waxaana ma helin hebel maaragtay waa ciishaysan yahay qaarkood maaragtay leeyahay sonkortaa ku kacday hadduu lacag bixiya haba ku kacdaba yaa kuwa ninka ummad masiirkeeda magaranaysa lacag ku doonaya sonkorta haba ku kacdo laakiin waxa weeyaan waa wax wali indhaha ma saartay dadka lacagta laga soo raadiyaan ka mid nahay dadkii laakaale nala ololay maartay lacagta wax ka raadiye oo maxaan ku raahdaa maartay kursigii beesha waxbaa ka dhimane lacagta hal la raadiyo intaasaa la iska rabay waxaan wax horta waqti badan ugu lumay maaha laakiin waxa weeye arrinta meesha jirta dadka xildhibaanada waa kala duwan yihiin baarlamaanka ku jira dadka xildhibaanada baarlamaanka ku jiro dad masiir xeelinaya dad dan xeelinayo badan dad wanaagsan oo badan inuu ka abaal dhacna maaha laakiin waxay leeyihiin garab bay leeyihiin marka xasan sheekh maxamuud isaguna waxa weeyaan waxa loo socda waxa waa xildhibaanadan inay doortaan madaxweynihii Soomaaliya kuwii dooran lahaa dalka masiirkiisa koofiyadda u sareysa kuma tali lahaa wey marka waxa weeyaan in hadda ololaha ka socda kuwa xildhibaan musharaxiinta madaxweyne xasan wasiiradiisii baa jooga boorsooyin wata baa degmooyinka wakiilo u kala tirsado garowa fadhiya oo ma garanaysaa sida loogu qulqulayo meeshooda marka waa mar haddii tartan jiro tartan bilowda nin walba rag baa jooga kaam baa joogo gurigaas waxa weeye waa kaamkii kuwa marka xasana waa imaanaya ololihiisa wuu bilaabaya insha allahna waa la soo dhaweynaya
laakiin waxa weeyaan xildhibaanada waxa weeyaan baarlamaanku kuwa federaalka ku budaan dad kala duwan baa jira hadda waxaan muuqata dadkii xildhibaanada federaalka heer federaal ee wanaagsanaa ee laaluushka aan qaadan jirin ee ummadda dantooda difaaci jiray waxaa muuqata hadda in ay kolley Puntland intii kasoo geli lahayd kama soo gelin xagga gobolada kalena waxaan filayaa maaragtay in badan oo hadda soo noqotay moog bacbaclayaashii kuwii maxaan ku dhaaf miishaarada ahay kuwii haamaanada ahay kuwii odayaasha ma garanaysaa ka warqabi jiray kuwii ma garanaysaa beeraha dhexdooda hadallada maaragtay shiraad kala wareegi jiray kuwaas hadda safka hore ka muuqda wayna soo baxeen taasna waa halis iyo cabsi weeyaan ayay mustaqbalka Soomaaliya ku tahay abba master burhaan qodobkaas xubnayna ka gudubno su'aal baa weydiinaya kaliya haye burhaan saxaafadana uu ka tirsanaan jiray la hadal su'aal la barnaamijka waxaan rabnaa oo kaliya laba arrimood uu sheegay wuxuu sheegay madaxweynayaasha soo baxay reer Puntland ka soo bixi jiray in ay macnaheedu awoodooda weeqday in ay baarlamaanka dhihi jireen annagaaba gadanay waxaan rabnaa yeelay Soomaaliya uu sheegay laakiin macnaheedu wax yar oo cadayna oo nin madaxweynaha oo soo baxay ma lahayaa oo yiri anaa baarlamaanka gatay ilama hadli karaan wax cadayna taas ma lahayaa oo laga duubay waa qodob midda kale ma lahayaa xildhibaan hadda sida dhacday qof lacag intuu lacag bixiyay abastoolad ku haya ama ceyrsanaya oo ka soo duubteen labadaas su'aalo cadayn baa loo baahan yahay moogtaha warka suuqa waa la iska dhigi karaa anigoo waxba dhibin baa la oran karaa waxaas sameey laakiin waxaa la rabaa wax cadayna oo laga soo duubay nin bastoolad lagu ceyrsanayo oo xildhibaana ama lagu doonayo oo reer Puntland ma haystaan nin oo cadayna buraan wax leeyahay cali baa gacan taagay arrintaas haye horta anigu waxaan leeyahay arrintaa hadda u dhamayso corruption-ka ama qaabka si looga hadlayo horta gaar wax ku ah hadda Puntland maaha laakiin waa wax caam ku ah Soomaaliya oo dhan wax caam ku ah Soomaaliya oo dhan wey ma aha laakiin barnaamijkeena ku saabsanaa Puntland waa maadaama caam ku tahay waa garan kartaa dib isugu noqday haddaan dib isugu noqono kursi ma fadhiyaa nimaan lacag bixin oo baarlamaan iibsan mase jiraa nin baarlamaana oo markii hore isoo aan ku imaan sidaas hadda ma jiraa nin ku doonaya lacag maahe rabitaan shacab iyo waxqabad iyo laakiin xildhibaan wuxuu codsanayaa oo burhaan laakiin waxaa cad weeye ninka waayeelka ilkahaaga kala qaado aan tiriyan lama yiraahdo laakiin 2014 magaalada Garowe dhexdeeda ahayd aduu cadeen indhaha ma saartay magaalada Garowe xildhibaan anu wax ka musharaxiinta ka mid ahaa indhaha qari karaya magaalada Garowe dhexdeeda ahayd haddeer soo ma joogno haddeer taagan tahay dad badan oo ama heshiis ku qaataan ama ballan ku qaataan waxa laga qaadiyaa waa la soo ilqabaa tii horena saasay ahayd dad loo soo celiyay lacagtii laga qaatay baa jooga waxaan qirayaa anu waan taaganahay xildhibaanada Puntland ku ahay ragii sharaxnaa oo guriyahooda inay joogeen iyada qarsoodey maaha anu hadda iyo kula yaamiyo ku ceebeynmayo waa wax caan ku noqday Soomaaliya oo dhan weeye Soomaha kuwa Soomaaliya hadda loo socdaana waxa weeye kasbasho siyaasadeed iyo mid wadaniyadeed waxa kaga xoog badan dhaqaale urursi lagu iibsado waa maasan saddexda waxay qireen oo su'aashaadii cali baaba soo dhaweeyay wuxuu yiri wuxuu dhan anaga goobjoog ka ahayn garaal baan ka ahayn marka haddii arrintaas jirto see lagu joojin karaa xildhibaan intii aan sheegay nin xildhibaana nin wax doonaya oo musharaxa dadka uu wax ka doonayo waana la shirayaa waana la sheekaysanaya waxbaana dhex maraya adiga wixii doona ha jiri anigu taa anigu cadday kama laakiin waxaan ka hadlaynaa corruption caddayna wax la soo duubay oo samcadda baarlamaanka ku xun cidda haysa ama shacabka reer Puntland ama musharaxiinta dhib ku ah waa la keeni karaa laakiin annaga oran mayno ninka musharaxa gurigiisa xildhibaanaad joogay way joogi karaa marka cod buu ka rabaa laakiin caddayn lacagtaana kaaga bedelanayaa nin ka duubay cid ka duubtay oo soo bandhigaysa oo sabcadiisa xildhibaanadu sharaftooda inay ilaashadaan anaga anugu xildhibaanada hadda idinka anaa kala jooga anugu ma ogi meel xildhibaana intuu nin lacag kaga bedeshay ama u diiday ama lagu ceyrsaday ama dhex maray cilqab siyaasadeed wuu jiri karaa oo dadeen waxa uu doonaya wax waayay laakiin mawduuca waa ka tagnaa su'aalo kale gudbina kaliya wax ku weydiinaa laakiin hadda adigoo kale xildhibaan burhaan 2009 baad soo gashay golaha wakiilada ee Puntland
doorashadii hore ee cabdiraxmaan lagu doortay 2009kii waa codeynaysay tii dambe cabdiweli lagu doortayna waa codeynaysay kuwa guddoonka oo kale waa codeynaysay tanna waa mid ka gadisan oo sanadkan ugu horeysa oo waa hore uma dhicin tan aqalka sare waa codeysay weli maysan dhicin intuu maalan qof tartamaya musharax intuu ku yeedho koran burhaan xogaagaana qaado ama lacag baan ku siinayaa isiyo ma dhicin yaa horta waxa weeye aniga waxa weeye shaqadayda maaha umana iman meesha inaan anigu codkayga gato meesha waxaan u imi ii kaabta aniga waxaan qofku wuxuu yiri anigu wuxuu ku yiri waxaas yiri ku dhihi maayo aad may garta maxaan adiga laakiin aniga shaqada aan meesha u fadhiyo maaha inaan anigu codka aan dadkii soo doortay nin magaalo madaxdaan aan anigu xildhibaan u ah oo ka soo baxay dadka is soo doortay codkooda intaan gato inaan anigu saan rabo ka yeelo uma iman meeshaan anigu wax badan aniga waad aragteen anigu xuquuqda u doodayay xitaa idinku dadka ka mid tihiin oo waxa weeye mushaharooyinkoodu maqay aad bay garta maxaan hadaan anigu dadka lacag siisanayo xuquuqdiina idinka anigu ma aan doodeen shaqaalaha hayska iyo uma aan doodeen uma dooneen da ka bidbaa mushaar baa leedahay oo maasanta dhageysid uma ay doodeen marka anigu codkayga qolka ku gudbana waxa jiray in doorashadii Puntland ka dhacday Garowe siyaasiyiin miisaan culus ku leh oo haray kuwa kale oo ku baxay farci diyaare iyo kuwa ay oran karno waa siyaasadda waa ku cusub yihiin oo soo baxay arintaasi ma arin dhanka horumar la sameeyay mise waa dib u dhac ugu horeyn waxa la banaasiyay burhaan anu arintaas laba dhinac baan ka eegaya dadku waxa weeyaan laba qof siyaasadda ku cusub markaa oo laakiin bulshada aan ku cusbayn dhexdeeda ama ganacsado ahaa ama nabadoon ahaa ama qof firfircoon oo bulshada rayidka ka tirsan laakiin aan hore xildhibaan iyo wasiir iyo waxa u soo noqon baa jira oo firfircoonidiisa la yaqaan anigu waan qabaa kaas in lagu bedelo siyaasiga daaray oo muddada badan baarlamaanka ku soo jiray oo ilaa iyo carto ama magaranaysa bagaati soo jeegay hadday dhinacaas baarlamaanku ka fiiriyaan way fiican yihiin laakiin nin odaya oo aan ceeb lagu aqoon oo maartay dadkii wadanka maamul dhisidiisa ay ka soo qayb qaateen mid aan la aqoon oo bulshada wadanku aan 7 cisho jooga markii lagu bedelo kale wax sidaas oo kale ama bil jooga ama 7 cisho jooga oo meelahaas magaranaysa telefoon tan loogu diray nin meesha u ololeynayo saas markuu waayo taas macquul ma aha laakiin markaan fiiriyo shakhsiyaad badan oo caan ahaa shakhsiyaad waxaa la tartamay iyagana la yaqaano laakiin aan siyaasadda ku badbadnayn ama marka waxaa weeye qofkan odaga wuxuu qaban kara waa qabtay oo laakiin culus oo la yaqaanay muddo badan soo joogay daalay wax badan la tijaabiyay wuxuu marka in wajiye cusub la tijaabiyo oo siyaasadda la yiraahdo bal shabshablana ku day oo qofka potentialkiisu uu ku jira qofka maartay hal qof in la iska daba socdo ma fiicna dad cusub baarlamaanku inay tijaabiyaan meelahaas anu taa kuma eedeyn baarlamaanka waana sheegay waan ka cudur daaray hadda waan ka feefanay arintaas baarlamaanka reer Puntland oo dhan aan baarlamaanka Soomaaliya dhan corruption ma wada aha corrupt dad wada musuqa ma aha dad caada qaatiyaal damiir xun ma wada shakhsiyad wanaagsan wadaniyiina oo ilaa ay SYL wadaniyiin soo aha ayaga caruura soo aha dalkan calankiisa u soo halgamay baa ku jira ma xaqiri kara marka kuwa Puntland dad sharaf loo fiican baa ku jira waana inta waan leeyahay isbedelku meeluhu ka imaanaya ama inta xataa naruurada meelaha ka imaanaysa waa intaas weey laakiin qaar badan oo in xeer laga soo saaro oo dalkan xeer ka yeesho arrimaha musuq waa arrimaha dalka u halisan weey ta ugu daran oo dalka jirta waa markuu dalku iib noqdo masiirkeedu iib noqdo arrinta marka dhaqaalaha taas weey marka aniga waxaan qabaa wajiyada cusub fursadda cusub waa loo baahan yahay qofka wajiga cusub ah mid maanta dhashay maaha moogtahay qofku in bulshada ka soo dhex baxa weey siyaasadda ha ku cusbaa laakiin bulshada waa inuu ku cusbaan qofkani waa in degmuu joogaa degmada muxuu ka qabtay gobol buu joogaa gobolka muxuu ka qabtay hay'ad buu ka shaqeynayay shaqaale rayid oo muxuu ka qabtay ganacsadu ahaa muxuu nolosha iyo maartay naftiisa ka qabtay qofku waa in qof tijaabsan u yahay oo bulshada marka horeba ka dhex muuqda laakiin يعني هل مر خان الله يسوع فري وعصبي هذا وجه عصب على التجابينه تاس مرسيه ما نفس اعتقاد ممكن اعتقاد الحقيقه ورن inay dhacday inay waayeen filashadoodii ama hankoodii ay filayeen inay ku guuleystaan doorashada rag waaweyn oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda Puntland iyo tan Soomaaliya waxaan is leeyahay laba arrimood yaa sabab u ahaa inay taasi dhacdo waa koow iyadoo aan la filaynin in doorashadu ay noqon doonto ka dhacday Garowe mid heer Soomaaliya taasoo aan la jeedo
in aanay ku koobnayn keliya Puntland oo ururo siyaasadeed oo Soomaaliya gobolada kale ah qodoodu ay qayb ka qaateen ama ay lobbyingkooda dhinac kaga jireen taasi waxay sababtay baan oran karaa in ku xisaabtankii ay ku xisaabtamayeen raggan miisaanka lahaa ama siyaasadda Soomaaliya iyo Puntland ba ku weynaa inay waayaan filashadoodii ama hankoodii siyaasadeed ay ka sugayeen positionka inay ku guuleystaan iyo midda labaad oo ah factorkii arrintaas dhaqaajinayay oo ahaa arrinta lacagta taasu mar labaad bay soo noqotay intaanu dooda ku jirnay waxa weeyaan waa awoodda labaad ee dhaqaajinaysay ama suuro gelisay in ay ku guuldareystaan raggaas filashadoodii rag waaweyn boosaskii waa ay waayeen ragna faraci dilahay bay ku baxsadeen sida aad u sheegtayba arrintaas anigu laba arrimood baan u dhigayaa horta marka hore weeye qof kastaaba xaq buu u leeyahay hadduu yahay mid siyaasadda ku soo jiray oo la yaqaan iyo hadduu yahay qof dhalinyaro ah labadaba xaq waxay u leeyihiin dalka waa loo siman yahay weliba waxaan soo dhaweynayaa anigu yaa hadda qofka muddo ku soo jiray adduunka waa qofka shaqada markuu soo retire garooba retirement u galaa in jiilka cusub firfircoonida leh la siiyo fikriga waa soo dhaweynaya waa raacsanaya raalliga laakiin waxaan rabaa inaan ku idhaaho midda hadda dhacday uma dhicin sidaas yaa anigu waa soo dhaweynayaa fikriyan waa soo dhaweynayaa dadka cusub soo siyaaday laakiin waxaan qabaa sida u sheegtay su-aasha u dhigto ah xubno waaweyn ama dalka magac ku leh ama jiritaan leh ama shakhsiyad ballaaran leh baa waayey waxaan u qabaa taasi inay ahayd arrin aan runtii anigu kolba aanan sidaas u dhigeen hadda waxa u daway walaalkay soo ka hadlaye hadda qaarkoodba waaba ogeyn oo influence bannaanka baa ku jirtay oo hebel ma soo geli karo hebel dacwaanu ku samaynaynaa hebel yaa waa ku jirtay qaar kale waxaa laga yaabaa hadda inayan markaas majaruhu meeshu u socdo oo runtii waayeel wax la weynaa isyeelyeelin inayan ahayn kuwa ama lagu marsan karo ama lagu kasban karo ama lagu reeyi karo in laga doorbiday marka qof cusub oo loo sahli karo isagana inuu kursiga fariisto isagana barito uu noqdo haddee dhabada raba loo mari karo markaas aad baa maasantahay in cali xaaji in xildhibaan in burhaan aad baa maasantahay wax rabeen ku weydiino in su-aashaas oo kale in siyaasiyiinta iyo dadkii madaxweynuhu idin soo gudbiyey qaabkee u kala saaraysan maalan maxaad ku macnayn kartaa ama aad ku kala saarteen siyaasiyiinta cusub ee curdinka ah ee iminka soo baxay iyo kuwa waaweyn ee qaarkood haray ama kuwa sida dalkaa ku baxay arrimahaas see ku dhexeen adaa baarlamaanka joogay oo codeynayay waxay ku dhacday cadaaladda baarlamaanku sameynayay bay ku dhacday sababtoo tahay idinkaaba hadda waxa tahay baarlamaanka hore inaan baarlamaanka dhexdiisa corruption ka jirin waxa ka garan karna siyaasiyiin waaweyn baa gabdho yar la tartameen oo sigtay kuwa kale waxa weeye dad ku soo baxay soo maaha kuwa badan baa haray soo maaha de kulli waxa keenaya cadaaladda baarlamaanku sameynayay laakiin lacag siyaasiyiinta qori ma aha mid cusub aan siyaasad waliga gelin lacag waa yeelan karaa soo xildhibaan waaba ku soo baxay diyarkood laakiin waxaan ku yidhi adiga wixii la maleynayay mar haddaan wixii la maleynayay ee soo bixiyay baarlamaanku ninkay rabaan la cod siiyeen ninkay rabaan u diideen oo wixii la maleynayay waxaan meesha ay ka dhaceen ma kalkaas ka garan karaa cadaalad laakiin wixii la maleynayay haddii wixii la maleynayay hebel lama hadli karo hebel lama hadli karo lama way ma waxaa inoo jirtay in su-aasha u dhignayd qaar la maleynayna waa soo baxay qaar aan la maleynayna way yimaadeen ma garatay marka labada arrimood maxay ku macnayn karaa idinku saa isku kala saaraysan macnihii dee dadku inay dadka siyaasadda ku soo jiray oo soo jireenka ahaa oo la maleynayay baa waxaa bedelay dad cusub soo maaha hadda dee doodii bay ka mid ahayd ee tartamayaasha dadka ila tartamaya inay dad cusub loo baahan yahay kuwa horena ay nastaan soo maaha de way dhacday dad badan oo siyaasadda baa nastay dad kaloo fiican oo yar yar oo soo baxay dad waaweyn oo soo baxay masuuqa bedelay mase nasiibka bedelay marka nasiibkuna waa bedelayaa wax rabbi baa u qoray hase yeeshee baarlamaanku inay waxaan inu tusaynaa qof ku soo talagalay uu bixi karo lixdan iyo lixdan xubnoodba ama konton yaro inuu waayo afar xubnood ama toban xubnood
waayahay waa tahay aad baan inu maadsantahay waan ka gudbanaa su-aashaasi in ugu dambeyntii waxaan ku siqnaa gabagabadii barnaamijka doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Puntland aqalka sare waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay yeelanayso magaalada Garowe oo doorashada ka dhacaysa guud ahaan Puntland waa meeshii ugu horeysay maamul hoostiga dowladda federaalka ama federaalka ka horeeyay mudane Cabdiqaadir doorashadii aqalka sare lagu kala saarayo xubnihii madaxweynuhu soo sharaxay maxaan ku tilmaami karnaa ma ahayd bilow fiican oo u ah doorashooyinka soo socda ee dadban midalan tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha waqtigaada noo soo koob okay si kooban haddaan u iraaho runtii marka dhan laga eegana bilow fiican bay ahayd marka dhan laga eegana ma dhammaystirneen ama mugdi baa ku jiray waayo waxay yeelatay galdaloolo fara badan sida magacaabista ku timid iyo sida markii baarlamaanka loo gudbiyeyna codaynta u dhacday marka saa daraaddeed waxaan isleeyahay tan dambe soo socoto ama midda aqalka hoosena saasi la mida inay u dhici doonto yaan filayaa anigu horta aqalkan baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka markii horeba doorkiisu dastuurka sida ugu dunida waa wax cad laakiin qaabka kan waxaad moodaa in ay ku timid qaab siyaasi ah iyo maartay loolan siyaasi inay ku timid moodaa laakiin aysan ku iman xikmad badan markii dastuurka lagu soo darayay xikmad badan oo looga fakeray danta qaranka laakiin waxaa moodaa rag siyaasadda kala jiidanayay oo tartankii sidaas ay horta ku timid awoodda ku tartankeeda marka baarlamaankana aqalka sare iyo aqalka hoose awoodahoodu si fiican uma kala qeexna oo dowlad badan oo ay kala leeyihiin macnaha mawduuca markaan ka fiirna aqalkan sare macnihiisa markaan ka hadlayno waxa uu soo kordhin karo waxay ahayd dadka gelaya markaanu ka fiirino waayo dadka aynu u dirsanayno markay macno leeyihiin baa aqalku macno yeelan karaa moogta aqalku magaciisu iyo qalfoofkiisu wax ma taro laakiin dadka gelaya markaanu fiirino sida ay u badan yihiin dad tayala maaha dad siyaasadda waa arag ku ah maaha dad macnaha bulshada dhexdeeda lagu yaqaanay ummad wadid iyo ummadda difaaceeda iyo ka shaqaynta danaheeda maaha qabqablayaal dagaal baa ku jira siyaasiyiin fashilmay baa ka buuxa kuwaas musuqmaasuqa iyo lacagta la ordaya oo magaranaysaa kursiga iibsanaya waxaan ka hadlayaa Puntland waxa ka socda federaalka Soomaaliya u socda waxaan gobolada kuwa ka soo baxay baan ka hadlayaa kuwa halkan ka soo baxay aan ka hadlayaa shakhsiyaad ka bedelin in sidii rabay baarlamaankii aynu dhaliilayno oo lahayn suuq iyo ganacsi bay meesha u joogaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markii horeba sidaan ku diray aan ognahay baan hadda dariiqi kamaana leexan taasna waxa mas'uul ka noqonaya baarlamaanadu مسؤولية waxay ku yeelan laakiin madaxweynayaasha keenay liis fiican oo la kala dooran kara marka horeba aan baarlamaanada hor dhigin ee dadkaasi ma garanaysaa liisaska ku soo daray baa horta mas'uul ka noqonaya waxa weeyaan Soomaaliyana maanta rajadeedii 4 sano ka bacdi inay joogto maanta meesha ay joogta maanta sida muuqata ay wax ku socdaan oo hadda wax laga bedelin oo baarlamaanka hadda xulistiisu bilaaban doonto aqalka sare kaas hadaynan aan ku baxsan oo kaas aan aqalka hoose laga dadaalay aqalka hoose hadda dhiman kan hoose ee hadda wali dhiman ergooyinkiisa xulidiisa lagu jiro ka hadaynan ka dadaalin oo kaas aynan u baxsan kan sare hadda muuqata waa buuqi siyaadi waa mooshinadii siyaadi waa xeer maartay weelkii weynaayo awal magajeebkii hore loo tashay baa hadda mid weyn lagu sii daray oo 54 waa waqtigan haya cali xaji see u aragtaa ma jira horumar laga sameeyey doorashooyinka dadban oo kale misalan aqalka sare oo kale madaxweyne oo la tashiye sameeyey iyo baarlamaanka waa ka qayb galay mise weli meeshii uun baa la joogaa hankii laga qabay aqalka sare qaabka la hadda ku muuqdaan see u aragtaa ama uu dhacay su-aashu waxay tahay haddii saasay tahay maxaa laga malaynayaa baan u qaatay inay tahay mustaqbalka dhismaha Soomaaliyeed marka soo socda ma bilow fiican ma yahay mise waxa muuqata in wali uusan horumar jirin laga sameeyay dhanka horta waa bilow fiican waanu dhinac waa ka aaminsanahay aqalka sare inuu yahay walow ay si buuxda u qeexnayn sida hadda Burhaanba u sheegay mas'uuliyaadka ay si buuxda u qeexnayn dastuurkeena horena uu yahay waxayna ku cusub waan qabaa aniga in la ballaariyo siyaasadda ay ballaaran tahay aqalka sarena waxaan qabaa inuu yahay hadda aqal haddii loo helo dadkeeda
haddii loo helo intaana kartida dadkeeda ay dadka kusoo xulanayaan walow hadda anigu aanan runtii aanan optimist aanan ku ahayn hadda xulakan laakiin inuu yahay talaabo fiican hore loo qaado xildhibaan burhaan ugu dambeyntii doodda waa soo gabagabeynaynaa xubnaha madaxweynuhu idiin soo gudbiyey iyo xubnaha aad codka kala siiseen ma isla kartaa waa xubnihii ugu habboonaa matali lahaa puntland guud ahaanna wax badan uga qayb qaadan lahaa dhanka qaranka dabcan dee way matalayaan isaan malaynaya markii la fiirsho maamul goboleedada in ka dad fiicnaanayo u malaynaya inay ugu dad fiicnaan doonaan malaynaya aad baa mahadsanta waa tahay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dooda ahaa idinka imaanayey magaalada garowe ee caasimadda dowladda puntland waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo xubnaha barnaamijkan igala qayb galay oo kala xildhibaan burhaan aadan aw cabdi oo kamid ah baarlamaanka dowladda puntland cabdiqaadir maxamed warsame joolaqo oo kamid ah aqoonyahanada reer puntland burhaan axmed daahir oo ah saxafi horena uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed iyo cali xaaji cabdille oo ah siyaasi reer puntland oo doodan ku saabsanayd doorashadii dhawaan ka dhacday puntland gaar ahaana garowe lagu kala saarayay xubnaha aqalka sare ayuu barnaamijku ku saabsanaa inta barnaamijkan mid lamada kulmi doono haddii ay kaalinoqdo waxaan ku dhaafinaa intaasi nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu